الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هبين جمعة وإلهي أكتسى غالي كوة waxaan joognaa xafiiska jaamacadda Taha Alcaalamiya qaybteeda gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaan nahay guddigii ardada jaamacadda Taha khaasatan anoo xasan gabaadimada xarimaha dibadda ee jaamacadda Taha waxaan rabaa oo xafiiska ardada aan rabaa inaan hambaliyo uga diro ummadda islaamka dhamaanteed carab iyo cajab sanadka cusub oo u dhashay islaamka وهذا مريا يكون 1442 waxaan leeyahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan hambaliyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa sanadkan iyo sanadka soo socda iyo kuwa ka dambeeya ilaahay nagu gaarsiiyo meel walba ummadda islaamka joogtana waxaan leeyahay hambaliyo waa sanad islaam waa in la tirsadaa waxaan u tirsanaa sanad kale oo miilaadi ah oo wadamada kale laga soo waariday waxaan leeyahay ummadda islaamka ballanta waxay ku qabsanayaan sanadkan islaamka ku tirsadeen waxyaabo mushaharka ku qaadanayaan waxaan ognahay miilaadi in ugu tariyo shariicada islaamka bishaan kale ku tirsadeen waxaan leeyahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan ha xoojiyeen diinta islaamka hana ilaahay ku soo galyahay quwadda diinta islaamkana inay dib u soo celiyaan isku taxallujiyeen sababtoo ah waxaan nahay dad islaam ah waxaan kala rabaa insha Allah ta'ala uga faa'iideysanaya caawa kulankan ilaahay subhanahu wa ta'ala وهبين جماعة إلهي إنه أمضى إسلام كأخ خاصة الصومالي إلهي إنه دحمري أفجرد يسفهن خاصة نوح الله هاي أمضى مسؤولين تهجامسة خاصة مدحوينها فدرالكا دو مامل قبلية ضمان مسؤولين أنت حلك أو هاي أمضى الصوماليات وحلنا هاي إلهي وجبقة مسؤولية الهيسان إلهي سبحانه وتعالى أنا واحد ويديستان إنه صن بريكا مال kuwa markii la weydiiyo mas'uuliyadda weyn kuwii ka baramoos ilaahay inuu ka dhigo kuwa ku fashilma oo ilaahay ku ciqaabay inuu ka dhiginin haloo turo ummadda islaamka wadanka iyo diinta iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed ee aadka u tabaalaysan ee 30 sano ku soo jirtay dagaalka qaxa iyo dhibaatada tacliin la'aaneed midabbiye la'aaneed mid caafimaad la'aaneed waxaan leeyahay in la isu tanaasulo oo qofka ul amriga la maqlana waa shay waajib ah oo shariicadeenu amartay ama heer dawlad goboleed ha noqdo ama heer federaal ha noqdo waxaan leeyahay in la isu tanaasulo la is ixtiraamo shariicadeena diinta islaamka ayaa weynaysay waan ognahay hadii saddex qof ay meel wada fariisato madax inay leeyihiin waa shay shariicadeenu amaantay waxaan leeyahay shirka hadda ka socda Dhuusamareeb oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga furmi doona ama kala socdaba waxaan leeyahay waxaan noqdo ku horseeda ummadda islaamka barwaaqo iyo guul walwal badan bay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed maxaa meesha ka soo bixi doona maxay noqon doontaa maxaa la isku raaci doonaa waxaan leeyahay inaad walwal dirtaan ummadda islaamka khaasatan shacabka Soomaaliyeed ee rafaadsan isku taxallujiya sababtoo ah nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri qof walba oo mas'uul ah waa raaci qof walba waa raaci wuxuuna mas'uul ka yahay wixii la raaciyay waxaad ogaataa qof walba miisaan in ay saartid intaan lagu xisaabin aad xisaabisid intaan ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa aan ku ciiboobina aad ummadda islaamka iyo wadankaagaba aad u dhaaratay oo kitaabka jaamaca aad u martay inaad maartay u tanaazushid isu tanaasulo la is ixtiraam waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ummadda islaamka khaasatan waxaan leeyahay hal isu dhagan u bilaado دولتنا هلا تاجر صلى الله وسلم وبارك على